السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada halkan waa YouTube channelkayga Faysal Xaaji haduu Ilaahay idmo mardhow waxaan booqanaynaa deegaanka Ceel Jaalle qaasatan guriga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haduu Ilaahay idmo waxa dhinacayga bidix fadhiyo injineer Gacmo oo muddo 5 sano ah ka faaloonayay ilaa 10 sano khibrad ah u leh arrimaha Farmaajo soo dhawo Gacmo وما صدق فيصل حاجي داودياش هذا والسلام يا وحنا جعلها إني آد أسوف لو جريان أما أي سبسكرايب صار على قناتك فيصل حاجي سيد أشيك تبع أما مقال كان وحورنا ويا هي بوقشة الله فيلي لو قلت لكم مقالة مركو مقالة حياتك إسلام مركان لو قصي قد بديجان العيسات كعيل جال أكاسي oo aad ogtahay in laga hirgeliyay guriga hogaamiyihii sagaalaad ee Soomaaliya oo ahaa guri ku yimid cod bulsho iyo soo jeedin bulsho waxaan inta badan gurigaas u ahaa dareen dadweyne in loo dhiso hogaamiye Soomaaliyeed taariikhda caalamkana wuxuu galay madaxweynihii ugu horeeyay ee dadkiisu ay guri u dhisaan oo ay ku maamuusaan runtii gurigu sheekooyin fara badan ayuu leeyahay Faysalow waa mahadsan tahay horta wuxuu noqon doonaa safarkii ugu horeeyay ee magaalada Muqdisho aan uga baxo oo aan marka ku tago deegaanka Ceel Jaalle ku tago aan ku soo booqdo madaxweyne in badan aan ku haminayay inaan meeshaas tagi doono gurigaasna waa ogtiin in badan inta badan ee la sugay waa ogtiin waqti dheer la sugay ugu dambeyntii mar dhow la daa furay marka Cabdullaahi Gacmo bal nooga waran bal guriga sida ku soo bilowday sida shacabkii dadkaas guriga ay ku dhiseen bal guriga faahfaahintiisa bal noo soo bilaw bal mar Faysal ma santa gurigan madaxweyne Farmaajo loo dhisay markii wax yar kadib uu talada dalka si dimuqraadiyad la ku wareejiyay sanadkii 2022 ayaa la bilaabay mar qura dadweynaha Soomaaliyeed ayaaba waxay sameeyeen dabcan olole ballaaran oo ay guriga madaxweynaha mahadsanid madaxweyne markii dambe loogu magac daray ay u aruurinayaan inta badan sheekada gurigaas aad bay u kacday iyadoo markii dambe awoodda hoos loo dhigay si loo qariyo xogta iyo macluumaadka guriga quseeya dadka Soomaaliyeed oo jooga gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale inta badan dadka ku kala sugan caalamka oo ay ugu horeeyaan dadka ku sugan qaaradda Yurub Amerika ama waqooyiga Amerika iyo sidoo kale dalalka ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Canada ayaa xoog ugu badan qaatay sidoo kale kaalinta ugu muhiimsan waxa lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aad baa loogu celceliyay ciidanka ayaa gurigaas kaalin weyn ku lahaa mushaaraadkooda ay ku bixinayeen si guriga madaxweynaha loo daadajiyo isla markaana loo dhiso dadka Soomaaliyeed ma kala soocin waxa qayb ka ahaa ciyaal iskuul dadka kale ee dhalinyarada ah kuwa shaqeeya kuwa aan shaqeynin oo qof walba lacag uu heli karay koontada guriga ku diray sax muddo 3 sano ah ayaa arinta la hooriyay 4 sano kadibna waxaa la shaaciyay in madaxweyne Farmaajo gurigiisa si rasmi ah loo dhameystiray dadku ma aysan filaynin in guriga halka laga dhisay laakiin waxay filayeen in magaalada Muqdisho iyo meelo ka agdhow guriga laga dhisay laakiin markii la ogaaday meesha istiraatiijiga ah ee laga hirgeliyay dadku aad bay sheekadaas runtii u xiiseeyeen hanaanka iyo qaabka guriga loo naqshadeeyay muuqaalo la baahiyana waxay ku cadeeyeen tiimka madaxweyne Farmaajo sida la socotaba guriga in injineero Soomaaliyeed ay naqshada lahaayeen ugu dambeyntiina sidaas ayuu ku bilaabmay waxyaabaha xiisaha leh madaxweyne Farmaajo su'aashii ugu muhiimsaneed ee la weydiiyay ahayd madaxweyne maxaa dareen ah oo dareemaysaa hadiiba dadkaagii ay ku maamuuseen oo ay guri ku dhiseen Farmaajo qudis wuxuu sheegay inay wax weyn uga dhigan tahay oo uusan weligii hilmaameynin in shacbiga Soomaaliyeed ay maamuuseen oo ay guri isaga ay ugu mahad celinayaan kaliya ay dhahayaan waad mahadsan tahay madaxweyne ay u dhisaan guriga runtii wuxuu qaabaysan yahay nidaam qurux badan waxaana lagu jaangooyay habka guryaha magaalada xeebta marka ay u dhisan yihiin laakiin naqshada iyo qaabka framework guriga uu sameeysan yahay wuxuu ahaa mid soo jiidasho leh maalinta xarig jarkana waxaa laga arkay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanka Ceel Jaalle iyo dadka magaalada marka oo gurigaas goobjoog ahaa abwaana Soomaaliyeed ayaa qayb ka ah sida abwaan shube iyo ciidanka qayb kamid ah ayaa guriga goobjoog ahaa sheekooyinka guriga ilaa hadda waa taxana waxaana inta badan dadku ay xiiseynayaan in si dhab ah looga soo waramo waana safarka adiga qorsheynayso waa safarka qorsheynayso insha Allah waa markii ugu horeysay aniga asaga wada jiro aan meesha wada tagi doono waliba guriga Farmaajo kaliya ma ahane sheekooyin badan oo magaalada marka waxa aydan ka soo tagi doonaa insha Allah waxa naga dambeeya kaamirada gays fadhiya Xasan Kaafi oo isagana qayb ka ah saddexdan insha Allah si guud ayaan uga soo warami doonaa deegaanka Shabeellada Dhexe marka Shabeellada Hoose ilaa deegaankaas oo dhan aan uga soo warami doonaa
bal gacmo waxaan nooga sheekaysaa intaasoo sano adiga khibrad weyn ayaad farmaajo u leedahay maxaa laga filan karaa gurigaas markii aan tagno wixii aan sugaynay oo kale iyo sheekooyinka ugu cajiibsanaa intaa farmaajo sheekooyinka ka samaynaysay marka hore adoo guriga ku horumaraysid laakiin waa maasantahay Faisal Xaaji runtii guriga waxaan ahaa dadkii ugu horeeyey dhinaca Facebooka ololihiisa kaalin weyn ka qaatay oo dhinaca afkumaalayaasha ah shirkada guriga iyo lacagaha iyo qarashaadka iyo inta badan dadku waxay kala socdeen dhinaca Facebooka si fiican Facebookayga oo markii hore calaamada la dhigi jiray ayaa ku baahinayay sheekooyinkaas guriga waliba si joogto ah maalintii laba muuqaal aan gelinayay dadku waxay la socdeen marka taxanaha halka guriga uu marayo mas'uuliyiinta ka qayb galayso ciidanka runtii kaalintooda sheekadaasna waxaan oran karnaa ama aan doorka aan qaadan karno ay tahay haddaanan ahayn qofkii koowaad waxaan noqonay qofkii labaad ama sheekadaas guriga sare u qaada dadka Soomaaliyeedna ka iibiya haddii aan u soo laabto su'aashaada sheekooyinka runtii xiise gaari lahaayeen waxay ugu yaab badneed inta badan sheekooyinkii aan Facebooka ku baahiyay farmaajo ka sameeyay inkastoo farmaajo boqolaal bilad madaxweyne farmaajo aan siinay si inta badan madaxweynaha loo dareemo inuu yahay madaxweyne shacbi ah oo dadku inta badan ay u jeclaayeen sheekooyinkiisa laakiin waxaa jirtay madaxweyne farmaajo taariikhda inta la xasuusto wuxuu ku guuleystay hal bilad oo rasmi ah sida loo ogyahay biladaasna waxay ahayd bilad uu ku qaatay arrimaha nabadeynta iyo inta badan waxa bixiyaan ururada la isku yiraahdo daladaha geeska Afrika farmaajo biladaas markii uu qaatay kadib ma uusan helin bilad weyn oo maamuus ah laakiin wuxuu inta badan dadku ay soo jeediyeen oo la riixay oo aniga qayb ka ah dadkii soo jeedinteeda lahaa bilada Nobel oo la siiyo dadka inta badan nabadda ka shaqeeya ama dadka loo arko inay xasaradaha dunida dajiyeen laakiin nasiib darro waxa madaxweyne farmaajo waa lala dadaalay laakiin ma uusan haran waxa qofkii ugu dambeeyay uu qaato oo ahaa ra'iisul wasaarihii Ethiopia Abiy Ahmed kadib markii uu xasaradihii gobolka Tigray iyo waxyaabo fara badan uu soo afjaray sheekadan laakiin ugu xisaab badan waxay ahayd sheekooyinka kala xisaab badnaayeen waxaan sameeyay taxano la yiraahdo madaxweyne farmaajo diyaaradii madoobeed ee Switzerland inkastoo Switzerland si sax ah u tagay intuu talada hayay laakiin wuxuu ku safray diyaaradaha caadiga ah ay dadku ay ku safraan Switzerland Air laakiin waxaa jirtay diyaarad madow oo aniga qoray scriptigeeda 4 qayb ay ahayd sax marka waxaan ka sameeynay sheeko ah magaalo to magaalo wuxuu ka baxay magaalo la yiraahdo Geneva wuxuu u safrayay magaalo kale oo la yiraahdo Berna marka inta sheekooyinkaas aan ku jirnay dadka commentary soo qoray waxa kamid ah farmaajo markii talada uu ka dayay ma qolo duumada ka shaqeyso ama jiniyaasha miyuu la qaraftaa diyaarad madow adduunka qof raacay Faisal ma jire marka taxanii waa ila macnaaday waxaa sameeyay ugu yaraan 3 qayb oo kale oo qayb koowaad marka lagu daro 4 qayb ay noqotay waxay ahayd sheekooyinkii ugu xisaab badnaa ugu yaraan waxaa daawatay intaasoo taxano 600 oo kun ilaa 500 oo kun mid ugu yar waxay ahayd 400 oo kun oo dadka la socday sheekadaas madaxweyne farmaajo taxanii Switzerland iyo diyaaradii madoobeeda la gacmo waad mahadsan tahay barnaamijka soo xiranayna saaxiibayaal la socda insha Allah safarkaas saddexdeena ku bixi doona haduu Ilaahay idmo iyo team kale hadii aan helno ugu dambeyntii gacmo janalkayga dadka maxaad ugu baaqaysaa kanaalkan waxaa leeyahay Faisal Xaaji wuxuu noqon doonaa kanaalka ugu muhiimsan arrimaha bulshada dalxiiska iyo sheekooyinka inta badan lagu baahiyo Faisal Xaajina muddo ka badan dhowr iyo 10 sano wuxuu ku jiray meediyaha wuxuu ahaa qabiir dhinaca muuqaal samaynta hadda wuxuu u gada rogtay dhinaca inuu dadweynaha soo muuqdo oo dadweynaha hor yimaado hala dhiirigeliyo waa nin mudan halka hadda uu joogan meel ka sareyso ayaan u rajaynaynaa insha Allah waa maasantii saaxiibayaal